madaxweynaha dalka Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud Yuufti oo hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Kampala. madaxweynaha iyo wafdigan oo ay ka mid yihiin wasiirka gaashaandhigga, wasiirro kale, xildhibaano, safiiro ayaa maanta barqadii si weyn loogu soo dhaweeyay gegida dayuurada Entebbe Airport ee magaalada Kampala. ujeedada safarka madaxweynaha iyo wafdigan uu hogaaminayo ayaa ah inay ka qayb galaan kulan maalinta berri ka furmi doona magaalada Kampala. sidoo kalena waxaa ka qayb galaysa wasiirada arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya. waa kan afayeenka madaxtooyada dalka Soomaaliya Engineer Yariso oo faahfaahinaya arintaasi. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi hogaaminayay oo ka koobnaa wasiiro, xildhibaano iyo diblomaasiyiinba waxay soo gaareen gegadan dayuuradaha Entebbe magaalada Kampala. ujeedada socodka madaxweynuhu wuxuu yahay inuu ka qayb galo shir 4 bisha oo berri ah ka dhici doona magaalada Kampala oo isugu imanayaan wadamada ciidamada ka joogan dalka Soomaaliya ee AMISOM ka wada tirsan oo loo yaqaan AMISOM Troop Contributing Countries oo uu shir gudoominayo madaxweyne Museveni. ujeedaduna waxay tahay bal in guulihii AMISOM gaareen iyo amnigii nabadeyntii kooxihii al-shabaab in badan magaalooyinka laga saaray. Igla Saalax, Telefishinka Caalamiga ee Kalsan TV, Kampala.